munaasabadan ayaa waxay ahayd mid xilalka ay ku kala wareegayeen maamulkii hore ee degmada Mahday iyo mas'uuliyiinta cusub waxaana ka qayb galay munaasabada xubno ka tirsan labada gole ee Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo maamulka cusub ee degmada Mahday ugu horeen waxaa munaasabada xil wareejinta ka hadlay xogeyaha cusub ee maamulka degmada Mahday gudoomiyihii hore ee maamulkaasi Axmed Xuseen Afrax iyo taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Bashiir Xalfooy waa farxad weyn waxaan aaminsanahay degmadan Mahday degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe degmada ugu qadiimsan waaye waa degmada ugu horumarka badan leh waa degmada ugu shacabka fiican leh waa degmada ugu wax soo saarka badan leh laakiin run ahaantii wax balaag liisti la ilaahay horu gashay una qabatayn siyaasadeed ku dhacday madaxdii matasha maanta waa joogtaa maamulka cusubna inay la shaqeey doonto sida annaka aysan dayici doonin insha Allah ta'ala aan rijeeyaa idinkana waxaad hesheen maamulkaana xilka ugu wareegi doono waxaad hesheen jaanis dib u xurayn dalku ku socdo inaadna ummadiina iyo bulshada muunu qabta in la maamulo horamar u baahan ayuu ilaahay idin xukmay inaad ka faa'iideysatiin insha Allah ta'ala waana mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh taliyaha booliska kan gobolka kusimaha gobolka xildhibaanada wasiirada dhammaan waad mahadsantiin admis sidaad runtiin aadan idinkaga mahad celihaynaa soo dhawaantiina maamulkii hore oo gudoomiyaha iyo xogayaha waxaan idin leenahay hadal waan u dambeyn doonaa biidni illaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi maanta waa farxad waa ciid waxaan ku faraxsanahay in muddo kadib xilka laygala wareego oo igala wareego wiil aan qaraabanahay oo ka soo jeeda degmada Mahday u dhashay ku dhashay farxad weyn ay tahay si niyad furana ayaan kula wareejinaa xilka dhammaan ka soo qaybgalayaasha cid walba masabkeedan ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh anu kaadir ma hayno magac ma sheeg aqaane sida nin walba xilku ku fadhiyaan ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh degmada Mahday waxaan u imaanaa saaka xil wareejin in gudoomiyihii degmada iyo xogeeyihii iyo taliyihii saldhiggii wixii dhammaantood maamulka degmada guuraya yimiday anay maadaama aan ahay kusimaha qaybta Shabeellaha Dhexe ayaan waxaan u taliyihii saldhiggana uu meesha u socdo inaan meeshan laba kelmad ka iraado degmadan haddii ay shalay boolislaan ay ahayd boolisku waa keenay taliyihii saldhig waa keenay wixii kaloo la heli karna waa ku soo daraynaa ilaahay idankiisa boolislaan dambe uma fadhiisan doonto garabkiina la galo waan salaam assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow iyo gudoomiyaha cusub ee maamulka degmada Mahday ayaa dhankooda munaasabada hadallo ka jeediyay maanta waxaan u nimid inaan halkaan ku kala wareejino gudoomiyihii hore ee degmada Mahday Axmed Xuseen Afrax iyo xogeeyihii hore ee degmada Cabdullaahi Faruqle inay maanta xilkii wareejiyaan kuna wareejiyaan xogeyaha cusub iyo gudoomiye Saalax haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa marka inaan dardaar yar aan halkaan ka bixino xaqiiqdii waa dareemi kartaan maamulka cusub ee degmada loo soo magacaabay maamul idinkaga horeeyay waqti adag ku soo shaqeeyay meel fiican idin soo marsiiyay xaqiiqdii waxay soo shaqeeyeen xilli adag oo qof bini aadan uusan ku dhiirin karin inuu degmada wax ka qabto waxaan ugu mahad celinayaa maamulkii hore wax qabadkiisii meeshii wanaagsaneed wax soo dhigay idinkana waxaan idinka rajaynaynaa inaan meesha maanta idin la keenay aad sii dhaqaajisaan anaga kuuli ku hanweyn maadaama rag dhalinyaro ah oo firfircoon loo soo magacaabay maanta inay wax qaban doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Hirshabelle xildhibaan Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciiley iyo wasiiru dowlaha wasaaradda dastuurka xukuumadda Hirshabelle xildhibaan Saadiq Muqtaar Cabdulle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare ayaa dhankooda hadallo dardaaran u jeediyay maamulka cusub ee degmada Mahday salaan kadib aniga munaasabadaanu ama Mahday waxay leedahay taariikh gaar ah waxaan kamid ahay maamulkii ugu horeeyay muxuu ahaayay markii cadawga ay dawladda gacanteeda soo galeysay halkaanu muxuu ahaayay ayaan kamid ahaa waxaan kamid ahaayay gudoomiyihii ugu horeeyay Shariif Abuukar Axmed Sabriye ninka xilka halkan kula wareejiyay ayaan ahay afar gudoomiye maamulkii afraad inuu yahay maamulkii shanaad oo malaynaa maanta intaas ayaan soo joogay
sidaas ayay marka aniga qiimo gaar iigu leedahay Mahadaay. waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka noqdo xafladan lagu sagootinayo maamulkii hore laguna soo dhaweynayo maamulka cusub. waxaan leeyahay maamulka maanta la sagootinayo ee degmada Mahadaay ka shaqeynaya waxa ay qabteen wax halkan lagu soo koobi kara maaha. aaday u mahadsan yihiin. degmada Mahadaay waa degmada ugu qadiimsan degmooyinka Soomaaliya aan dhihi karaa. waa degmadii ilbaxnimada, waa degmadii aqoonta, waa degmadii wax soo saarka, waa degmadii bulshada isjecel lagu tilmaami karo. reer Mahadaynimada ay ku weyneed, waa degmo xadaariya. waxaan leeyahay aadan ugu faraxsanahay. degmadan waa degmo aan ka soo jeedo. waxaan ka mid ahay maamulkii degmadan xilaan hore ugu soo qabtay inta aanan Hirshabelle la dhisin ka hor. waxaan leeyahay marka farxad weyn ayay ii tahay. muddo dheer ayaan ka maqnaa. salaan kadib farxada ii tahay maanta inaan goobjoog u ahay kala wareegitaanka maamulkii hore iyo maamulka cusub. runtii waxaan u mahad celinayaa maamulkii hore, guddoomiyihii iyo xogeeyihii oo runtii soo dhoweyn weyn noo sameeyey, sii sallaxay, qurxiyey, maantana diyaar u ah inay xilka wareejiyaan. runtii waxaan leeyahay mahad ballaaran idinka gaarto. waxaad ogtihiin maamulka guddoomiyaha degmada iyo xogeeyahaba waxay ka sheekeeyeen marxaladihii la soo maray oo degmadu ay soo martay oo aan goobjoog u wada ahaynay waxa degmadu ay ku shaqeeyeysay iyo duruufo ay ku soo shaqeeyeen. iyadoo aad ogtihiin duruufahaas jiray ay jireen ayay u adagkeysteen, ku soo shaqeeyeen, halkan soo gaarsiiyeen. maanta nooma suurtageli lahayn haddaysan ayaga aa lahayn oo aysan dhabar adeegi lahayn duruufihii jiray inaan halkan imaanno ee xil u kala wareejinno. noo suurtageli ma lahayn. sidaas awgeed aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. waa u mahad celinayaa. marxaladay soo gaarsiiyeen, duruufo adayay ku soo shaqeeyeen. waxay ka sheekeeyeen ood ogtihiin ifantayadii iyo dhacdooyinkii ay soo sameeyeen, meesha ay gaarsiiyeen, waddooyinkii waxay dhisi kareen ay dhiseen. xaruntan hadda aan ku kala wareegayna ayagaa dhisay oo gacantooda ku sameeyey. runtii waxay mudan yihiin in mar labaad la abaano oo la yidhaha waa mahadsantihiin la yidhaahdo. bulshaduna idinma hilmaami doonto runtii. intaa kadib maamulka cusub howl weyn oo aad u adaga hor taallo oo ay tahay inay halkan ka sii dhaqaajiyaan meesha ay maamulka hore keeneen, inay ka sii dhaqaajiyaan meel ka fiican oo ka wanaagsan ay gaarsiiyaan. sababtoo ah ayaga waa la magacaabay, bulshaa loo soo magacaabay, nimankii hore meesha waa ka wareegayaan, xilkii ayagii ku wareegaa. laakiin la macaamilkii dadka iyo shaqadii iyo qorshooyinkii, nimankaasu qorshooyinkoodii iyo shaqooyinkoodii iyo wixii haddaadan weydiisanina wixii tala ayay la egyihiin maalin xilkii adinkaa ku wareegay. ayagana waxaan rajaynaynaa inay garab idinku sii doonaan hadduu ilaahay yidhaahdo. annagana ka xildhibaan ahaan waxaan diyaar u nahay in aan shaqooyinka ay qabanayaan aan garab ku siino. waxaad ogtihiin degmadani waxay ka mid tahay degmooyinka dowladda Hirshabelle. waxay ku taallaa meesha ugu wanaagsan oo ugu wax soo saarka badanne oo ugu wanaagsanoo maanta la dhihi lahay Hirshabelle oo dhan ay ku filan tahay haddii wax soo saarkeeda iyo laga wada shaqeeyo oo horumarkooda laga wada shaqeeyo. waxaad ogtihiin hadda wixii ka horreeyay cidna laguma eedaayo in lagu ammaano maahane maamulka hore. sababtoo ah waxay ahayd furin dagaal oo nimankii argagixisada ahay meel walba ay ka soo galayaan. iyadoo taas ay jirteen haddana maamulku adakaysanayay joogeen, naftooday u hureen. waa la nasiha marka raggiina yimid marka waxaa laydinka rabaa shaqaa idin taallo. waxaa la rabaa inaad bulshada kaashatiin, inaad qorshooyin la timaadiin, in ciidamada joogo ee militariga ah iyo kuwa booliska ee maanta yimid runtii aad la shaqaysiin. ayaguna waxaan rajaynayaa inay idinla shaqay doonaan. waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto. annaga hadda waa wada imaanay dhammaanteen. waxaan nahay dhallinyaro deegaanadan ka soo wada jeedo. dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan dib u xiraynta hadda socota aan ka qayb qaadano.
waa ogtiin hadda anaga waxaan ka imaanay 4 tuulo dhulkaasaan ka imaanay sidaan waxaan u imaaday in maamulkan ay halkaan yimaadaan haddii meel la xureeyana dawladii u baahanta iyo nidaamkii iyo dawladdii loo baahnaa waa adinka waxaa laydinka rabaa marka inaa heshiina meeshiina aga sii wadina laydinka rabaa booliska waxaan u keennay u yimideen inay qorshihii dawladda ay ku shaqeeyaan nidaamkii dawladdu ay dejisay ay ku shaqeeyaan sharciyadii ay la yimaadaan sidaasna ay u howlgalaan adinkana waxaa laydinka rabaa iyaga laftirkooda waxay diyaar u yihiin in dib u xoreynta ka qayb qaataan oo sidaasaan wada imaan laftirkeeda inaan dib u xoreynta ka wada qayb qaadano oo shabaab la wada dagaalno mas-uuliyiintan maanta xilalka la wareegay ayaa dhowaan waxaa magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee horyaala maamulka cusub ee degmada Mahadai. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, Telefishinka Dowladda Hirshabelle.